aan ku caanamaarayni xardheere iyo meesha la yidhaha hobyo iyo waxaa lagu kala tegay qarnigii hore. hadda haddaad rabto adigu inaad duulaan ugu soo qaado oo rabto inaad xardheere iyo hobyo iyo ceelruurta aad sheegaydo iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay dhulkaas teeriya garacad ka sokeeya oo reerka sacad degan yahay reer hiluule iyo reer nimcaale iyo teeriya wisil iyo aad rabto inaad dagaal ku soo qaado, cumarow cidu kaama hortaagna, ma garat. hadduu ku deeqi waayo dhulkii kumanaanka kilomitir ahay xeebtii 3,000 kilomitir ku dhaweedo halkaas iyo waqooyi kaa jirti, hadday ku deeqi weyse oo bugcadaas yaroo reer habar gidirahoo sacado ay degan yihiin hataa cid kale ma degana, aad rabto hadda inaad tiraahdo waan ku duulaynaa oo annaka iska laho maaragtay deegaanka leeyahay waa la kala yeelanaya carrada niyahow soo dhawaadaan idaleena. annaku dagaal waxa waaye waxaan ka qaadanaa maalin nabad. Cabdullaahi Yuusuf Axmed ninka hadda joogo reer Cabdi Qaybdiid heshiiska saxiixa oo ku jira gaalkacyo dhulkeena jooga, dhulkeenan joogaynaa, xaggeena yaan idinkaga soo duurin mayo, xaggeena yaan idinkaga soo duurin. heshiiskii muddo badan lagu caanamaaray, haddeerna heshiiskii wali saxiixan oo yaala. haddaad jebisiin ood leedahay reerka sacad la yidhaahan ku duulaynaa oo meeshan hadda ceelka laga saarayo hobyadan nimankan aamusanayo waa un magaaladooda. haddeer garacad markaad adugu dekad ka dhisanaysay hadday doonaan dhihi lahaayeen waan ku duulaynaa garacadoo nimankan dhulka kalama lihin oo carradan waan ku duulaynaa. idinkuma soo duulin, dagaal idinkuma soo qaadin, wixiina adinkaa iskale, magaalooyinkiina adinkaa iskale, waad dhisateen, dekedaa idin dhisan, ayraboorraa idin dhisan. haddii khayraadkiinu idin deeqi wayo cumarow laakiin si wata meesh shidaal baa laga helay, ceel shidaal aad mahawiya laga helay, shidaalkan waa qaali taana ku darnaa in la isku qabsa xaq maahan. dhegeyso cumarow dekad wax ka hanti badan ma jirto. dekad maaragtay oo ku taala caalamiga Afrika ku taala wax ka dhaqaale badan ma lahan. 2 dekadood aad leedahay oo Boosaaso marta containerada iyo ganacsiga Afrika oo dhan teeriya oo aado bari iyo waqooyi oo aad leedahay. waxaad leedahay oo kale garacad oo hadda dhistay oo 9 markab hadda ku soo xiri karto. marka buqcadii yareedo bacaadka heedo hobyo hadda marta guri ka galay cumarow rag dabka ka kacaya meesha jooga. adiga duulaan kuma ahayn heshiisay kula ahaayeen. hadda afkaaga waxaad ka leedahay maarta waan ku duulaynaa meeshan annaka iska laha jirna wareer heshiiskii meeshii lahaantii hore iyo wixii waa laga baxay. dhulka aad leedihiin dhulka weyn cid Soomaalida kuma jirto. marka macnaha waxa waaye cadayn ah annaku qabiilanahay waan tun weynahay lacagan haysanaa dagaalkan duulaan qolan ku qaadayna. waxaas miyaad nin weyn maarta oo odayaho girlaho qori xirale oo maaragtay oo dibadan kale leeyahay inta mikrofon yimaado oo ku waaqa daban dagaalamaynaa oo halkan ban ku duulaynaa annaka iska leh. cumarow saama dhihin abti saama dhihin ha iga sheegin adu hadda waxaad tiri may adu soo nir xardheera mati عمر مود كحكس ولا عمر مود كحكس على inta looyinkii la dayactiro shidaalka la soo saaro shidaalka aanu qaybsano meesha waxa weeye boqorkeen soo celiyo taasa ka hadlay anu inaad aro canshuurta kulama qaato garacad midda kulama qaato ka soo degto Boosaas annaka lacag naga siisid reer Galmudug aan yiraah kaama qaadano adigu nagama qaadatid annaku dawlad ma lihin meeshan habar gidira iskale habar gir dawladda federaalka waxaad adigu ka tay ka yihiin haddaad rabtaan adigu haddaadan ka ahayn qayb ka yihiin adiguna qayb ka noqo shaqadan yada ma ahan halkan nimankan markabkan u yimid waddo shidaal qodo 90% ay ka yeelanaya 10 kalena dawladda federaalka ay siinayaan adigu dekadaada hantida kaaga soo degta haddaad rabto dawladda si haddaad doontana u diid anigu waxaan u arkaa hanjabaadda iyo hadallada aad ku hadlayso waxaan arkaa qalaf. nin weyn odayna waa tahay hadda waxaad leedahay waxbaan waa la kala yeelanaya carrada hadallada waxa kamid ahayd wiilashii hubka haysan jiray hubka way haystaan. cumar waxaas kuma qabato reerahan mar hore heshiiyeen dagaal hadda maarta reer cumar iyo maarta nimankii reer maarta nimcaale heshiisii muddo dheer ahayn waxba iskama dilaan heshiisay yihiin. hadda adigu arrintaa ka joog in adeer nimanka meeshooda xerada yarayada iskala hadday dhisanayaan hadday amaamusana meel saxraa oo lama degaan weeye waliba lama degaankeed waxaad leedahay waliba wax naga siiya war wixii lama soo saarin shidaalkan hadda inuu soo baxay in kale xataa ma ahana dadkan haddeer ha u cilaamin dagaal horle oo haddeer yeysan dekadaada kugu qabsan adigu dekadaaba kuu furan hantiya kuu socoto shaqaaba kuu socotee haddeer ay kuu qabsan oo intaas iga taa warwaan salaamaya برامج شاشة دينوغرا دير وقسيني كل ساعة شاشة دينوغرا نشر قريب برامج شاشة دينوغرا أنت اللي السلام عليكم وعليكم السلام دمانتين horta waxaa dhibaato ah 2024 annagoo ku jirna
oo dad waaweyn oo garaad leh oo wax soo bartay oo qurbaha tegay oo nolosha adduunka arkay inaynu maanta ka sheekayno taariikh madow ee laga soo tegay qarniyaal horta midaas nimankan isdhaafsanahayaan iyo hubyo iyo howlaha Cumar ka hadlay iyo howlahaas kale anoon sii dhexgelayna intaas baan ka leeyahay horta waa taariikh madow baa lagu faanaya laga sheekeynaa wax noocay rabtaba ahaatee midda waxaan rabaa inuu u soo noqdo ninkii yiri khayraadka horta nimanka khayraadka wadanka dhulkeena noogu jira saa u fahamsantiin iyo siduu yahay waxaan u maleynayaa waxbaa ka dhiman khayraadka wadanka waxaa mas'uul ka ah dowladda xilligaas jirta ama dowlad dhexaato ama dowlad federaal ah qaybsigeedana waxaa iska ka dilaaca wiilka raas casayr jooga iyo baki iyo halkaas jooga Jabuuti xuduudkeeda saaran baa wax ku leh hobyo leeyahay oo laga qodayo hadda la saaminayo hadduu ilaahay intuu dhaqso ka dhigo 3 bilood kadib uu soo dilaaco reer hobyana ma laha reer Puntlandna ma laha reer Gaalkacayna ma laha reer Galmudugna ma laha waxa iska leh Soomaaliya midda taale Puntland waxba kuma leeyihiin waa diidantiini Puntland waxay siyaasad isku haystaan iyo qadafi iyo hadallo dowladda laakiin Galmudug kama xigi karayso ceelka ka soo baxa hobyo according to the dastuurka iyo dalka waxa ku jira khayraadkiisa waxyaabaha la isku haysto waa paperwork oo ah sidii maanta ceelkaas ka soo baxa Galmudug xaq waxay ugu yeelan lahayd iyo xaq waxay ugu yeelan lahayn inta kale Soomaaliyeed iyo dowladdu Puntland sharciyadaas bay isku haystaan dowladda federaalka sidii loo qaybsan lahaa khayraadka wadanka dhulka hoostiisa ku jira iyo badda ku jira waa federal stateskuna xaqooda leeyahay sharcigooda wadaniga Soomaaliyeedna xaq buu ku leeyahay marka nimanka saa wax u dhigaysan sidaas ma ahan haddii aadan garanaynin khayraadka sharcigiisa iyo qodobkiisa waxba idin ka maqan soo istaari galay dhulka waxa ku jira waa wada leenahay waxaan oo hadda man-made-ka oo gaaladu ay samaysay oo ah qabiyaaladan iyo waxaanaynu ku kala cararayno ku kala hadaaqaynana haddaan sii wadno sii guubaabinana waa inagii caqli xumadeen haddaynu u noqonana war maxaa inoo dano aynu iskaga sheekeyno ama aynu ka hadalno ama aan isku wacyigelino war maxaa dalkii dadka dan u ah waa weelan guud laakiin anigu hadda waxaan maqlahayo Allah u naxariista Cali Yuusuf iyo odayaashii geeriyooday iyo dadka tagay waa taariikh laga soo tagay ninna ha yiraahdo victory bay ahayd ninna ha yiraahdo way khaldanayd laakiin anigu ma qabo maanta bulshada Soomaaliyeed ee jirta in maqlaysa waliba dadka dhalinyarada u badan waxyaabihii soo dhacay oo qoloba meel ka taagan tahay in maskaxdooda iyo qalbigooda lagu soo celiyo la xasuusiyo walaalayaal marka waxaan ka codsanahay colaadda laga soo gudbay dib ha u abuurinine war ummad guwaabiye rag waaweynatiin oo tala geliya waan idin kaga baxay واي وريال سيارة كلهم كحية أحمد بنسيني ورنيك قال بك أنت محاول ما يوطع أركتيان ورولنا ولا وينسيني يعني كي كاري بلنك أحمد أنا يجوا مريق المذوقات أحمد محمد موسى محمد أنا أروح مع كابتن وحقنا وقع ما يعني أنا روكسيني يا حاجي وين هذا كوس أنا جميع أمر ومسنتي نمانتي وعدا كبوابان يقرأ لهذا لما أريد ما وحير ناكر هذا الربي مد كواد ومد ماب كان لير وريجين هاي on حقوق كاي ومالها لسكوا هستي كوبا مريهين ماب كحلقي للسماي وهاي لبدي كون يصدح يطبنكي حلقي حسن الشيخ هراء وجيوبي وما قولي للسمين هي قلمود حلقي ولي للسمين هي galmudug markii la sameynayay ayaa sharcigu wuxuu qorayay 2 gobol iyo wixii ka badan inay maamul goboleed noqdaan qoladii galmudug oo looleynayay marka waxay dhaheen mudug iyo galgaduud ayaan maamul goboleed u sameynaynaa waxa soo baxday in la yiraahdo mudug waa laba qaybna Puntland bay ka tirsan tahay sidii lagu soo qancin lahaa marka qaybtii waxa la isku dayay marka si uu sharciga loo waafajiyo in mudug oo dhan xaggan la soo mariyo oo dhinaca macnaha mudugta ay majarteenkii degan ama daaroodka degan yahay maadaama hal gobol isla ahayn mudug xaggan la soo wada mariyo actually odayaashii hataa dhaqanka reer Gaalkacyo aad bay uga soo qayb galeen marka meeshaas marka waxa weeye calaamadda horta meeshaas lagu qoray waa halkaas ay ka timid
markii dambe marka waxaa lagu heshiiyey dadkii maadaama heshiiwen waayeen in qabiil ahaan loo raaciyo dhinacaas oo mudugna ay raacdo qaybtii mudug ee daaroodkana ay raacdo puntland qaybtii mudug ee hawiyahana ay galmudug saa kusoo raacdo galmudugna ay saas ku noqoto gobol iyo bar ay maamul goboleed la ictiraafsan yahay markii dee arrintii lagu heshiin waayey ay ku timid marka horta maabka xilligaas u ahaa arrinta khaatumana xilligaas ilaahu naxariista cali khaliifa salayn ayaa aad ugu dadaalhayay maadaama mudug iyo xilliga aad loo sameynayay xamar buu yimid ani xamar baan joogay in maamul goboleed loo sameeyo marka ayadana disputerka la qoray xilligaas ay ahayd meel hoose oo waxaa jirto hiiraan iyo ayadana aad ku aragteen hiiraan waxay dhaheen annagu cidna gobol lama samaysanayno 2 gobol baan nahay sheekh shariif baa noo magacaabay 2 gobol maamul goboleed baan yaan rabnaa waxay xilliga ugu dambeeyay sheekh dhacayay bay noqotay hirshabeelle in la sameeyo intii ka horreysay oo dhan way kala qaybsanaayeen oo 2 saasay kala hayeen marka horta maabkan xilligaas la sameeyay wax hadda dawladda ka soo baxayna maaha wax hadda ujeedo kale laga leeyahayna maaha xilligii maamul goboleedyada la sameynayay iyo meelihii la isku haystay iyo wixii jiray bay ka turjumaysay ani xilliga xamar baan joogay horta taas yaa kaga jawaab midda ku saabsan shidaalkan hobyo iyo laleeyahay horta ceelka hobyo la yaqaano wuxuu ku yaalaa birigu ku yaalaa badda kuma yaalo baaritaankanna waa baaritaan badda dhexdeeda ah from Kismaayo ilaa iyo hobyo inta u dhaxayso ayaa baaritaan badda laga baarahayaa intaana weli wax shidaal oo lagu sheegay oo noo diiwaan gashay Soomaalihan ma jiro wixii ilaa hadda naga siiyo waa wax kale marka hobya ceel weyn ka dilaacaya oo la isku qabsanayaa iyo waxaas wax ka jira malahan baaritaanku waa baaritaan badeed oo hadda inta la siiyana Kismaayo ilaa iyo meesha la yiraahdo hobyo weey oo badda ma beriga ma ahan qaybsigiisa nin iga horeeyay aad uga hadlay already xilligii madaxweyne Farmaajo ayaa lagu shiray meesha la yiraahdo Baydhabo maamul goboleedyada dhan Puntland ay ku jirto way ka qayb galeen is-afgarad waxaa jiray khayraadka qarsoon dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada si u qaybsan lahaayeen 3 qodob baa la sheegay deegaan kasta oo laga soo saaro batroolka in ayaga koota la siiyo deegaan markaan ku leeyahay waa areada saarahan hobyo laga soo saaray percentage hobyo areadeeda oo iskuulaadka iyo caafimaadka iyo jidadkii lagu horumarinayo ayaa la samaynayaa ما مغشان ها والله والله مقلا درتا دبيعتي دولكم انا بتقورايا ساسا لوسي برسنتج كاس ها برسنتج لوسي برسنتج كلابادنا waa percentage ah gobolka ay ka tirsan saraan hadii hobyo ay tahay percentage galmudug baa la siinayaa saraan inta kale dawladda federaalka iyo marka inta la siiyo inta kale maamul goboleedyada soo harayna sidii kale tusaalaan 15% ayaa la siinayaa dawladda federaalka oo boqolkiiba 30 iyo meelahaas la siinayo markii ay sheerkeeda hesho kadib haddana waxay u celin maamul goboleedyada ayay percentage kamid ah haddana dib u celin marka waxani waa wax laga heshiin doono oo heshiiskeedana waa la bilaabay waxaana laga heshiinin oo isku wada raacina laguma soconayo bas yar baa dii sheego oo ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka sheekeeyaa jirta oo wadanka Botswana la yiraahdo markuu xornimada helay 2 qabiil baa degan qabiilna waxa way 60% qabiilna waa 40% madaxweynihii ugu horeeyay ee wadankaasi qabiilka weyn ayuu kamid ahaa waxaa laga soo saaray gobolku ka yimid ayaa waxaa laga soo saaray macdan dahabka laga soo saaray markaas wuxuu yiri uu shiriyay qabiilaadkii wuxuu yiri saan u qaybinaa qabiilkiisa waxay dhaheen waa inaad baasidka u diiday si feer u qaybiyay way socotay muddo kadib madaxweynihii wuu dhacay qabiilkii yaraa ayaa madaxweyne noqday waxaa laga helay dhulkii qabiilkii madaxweynihii cusbaa dambe qabiilkiisii waxaa laga helay